Yurub intaba ku nool dadka maanta ugu magaca dheer oo Ilaahay dhaqaalaha siiyo waxaa leeyahay dadkiina garab istaaga waayo maanta maalin aan ahayn la sheekeysana. waraysigan waxaan ku eegi doonaa dhanka abaaraha. waxaa khadka telefoonka inoogu jiro cabdixakiin cali cilmi oo ah u dhaqdhaqaaqaha arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan khaasatan degmada halgan. kusoo waa dhawaa cabdinaasir maxamed caanoy aad baan ku salaamaa in aad u aqaano meel iskula soo kornay waa dhawaa walaalkay. okay cabdixakiin waxaa ka jiro abaaro ba'an guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka hiiraan khaasatan eriyada degmada halgan maadaama aad u dhowduleesho bal warbixin naga sii xaalka siduu yahay. cabdinaasir maxamed caanoy waa mahadsan tahay arrintaas waa muhiim ina ka waxyaabaha 24 saac oo ka hadlayno u badan tahay niyow waxaad u malaysaa in sanadihii la soo dhaafay ilaa sanadkan dadkii abaaro oo weliba isdaba joog ah ay qabsatay weliba deegaanadii hiiraan khaasatan degmadii aan ku dhasho halgan iyo ereyadeedii ayagoo dadkaas ay ku dhaqnaayeen xoolo iyo beero intiiba ay waayeen webigii shabeellana uu eber yahow guray dadkii beeraha tabaca jireenna beerihii ayna dhalan xoolihiina iyo dadkiina isku kor la'deen. marka waxaan rabaa maadaama caawa ay kow iigu tahay raadiyo halgan waa ku faraxsana cabdinaasir aad igu casuuntay waxaan rabaa ina baaq u diro reer halganka oo kullaytaba kasoo jeedo iyo reer hiiraan oo dhan arrintaasaa rabaa insha allah ina ka hadlo. okay cabdixakiin baaqaaga ugu dambeeyo ganacsatada qurba joogta guda joogta dadku ilaahay wax siiyey baaqa aad u diraysid. cabdinaasir waa mahadsan tahay niyow sidaan ognahay hiiraan maanta dad ilaahay wax siiyey qurba joogta oo meel kasta leh waxay u badan yihiin waa khaasatan degmada kasoo jeedna anigii adiga halgan dadka maanta ama America ama Canada ama South Africa ama Europe intaba ku nool dadka maanta ugu magaca dheer oo Ilaahay dhaqaalaha siiyo waxaa leeyahay dadkiina garab istaaga waayo maanta maalin aan ahayn la sheekeysana in maanta qof walaal ah oo ina adeerka oo taqaano beera qodata ahay ama xoolo ku dhaqnay oo u dhimanayo lacag $20 ama ka yar oo xitaa ku afuri lahay waxaa leeyahay dadka taraaglayaasha reer America weliba dadka siyaasiyiinta maanta Soomaaliya ku matala federaalka waxay u badan yihiin waa degmada halgan ka soo jeedaan waxaa la ilgooni hal lagu yeesho halgan ceel ma qabta sidaan ognahay hal ceela ku yaalo halka albiis waa culus yihiin dadkii xanuunada soo wajahay baahi fara badan soo wajahday qooliya ka laaday halgan basna maana hiiraan oo dhamay haysataa waxaa la reer hiiraan oo dadka ilaahay wax siiyey ama ganacsato ama qurba joog ama dadka siyaasiyiinta oo kuraasta ku matala xawaale inay u kacaan aan intaasaa idin dhihi lahay ilma adeerada maanta maalin kala aamuso ma ahan maadaama ka shaqeeyo arrimaha bulshada kullaytaba intii dadaalkayga hadalkayga uu gaara ka shaqeeyo waxaa la arrintaa loo istaago khaasatan dadka ka soo jeeda halgan maanta qurba joog markii la yiraahdo 90% 60% waxa qurbaha u badan waa reer halgan welina ma arag jaaliyad reer halgan ah isku duuban oo jaaliyad reer halgan ay ka timid leeyahay dadka soo gar istaagaan waxaa la yiriyaa kullaytaba abaarahaas jiro ilma adeeryaal dadkiina soo garab istaaga birrina waa laga bixi doonaa waan la sheekaysan doonaa cabdinaasir. aad iyo aad u mahadsan tahay baaqaas iyo wacyigelintaas aad u jeedisay haddii dalka joogaan iyo haddii dibadda joogaanba. aad iyo aad u mahadsan tahay walaalkay. Salaam.